fadhiisto. مالي شرفت ومالي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو شيء استجنا وحلينا هاي بركة رسولك أنت كسوق قيب كشيء ملكته أكود عيسى أقوى بشالله على مسار كان كسوق قيب قال لي احترامه وحينو كسر فينا وعلى مسارنا إلى هاي وقبلنا حلك المسارين وفضيه والله قبتي سلطان أبشر حسن عليه وسلطانك أكيشة بلوينتا وركيو وانلين هاي همبليو انلين سلطانك بليرا سلطانك شرفت له ريرك هيبد له أكيشة وصوح شيء بلوينتا وركيو أيس كسو قبتي هل كانوا فريسين على مسارته أيانو لنا هاي ولا أننا وانكو على مسارهم بلي وحن سلام فينا يا مركا ورئيسه جودهان مرتي شرفتينا كسوق قيب كشير رجي يدمر بله قارهان وضياش الدقنكا بهوين تسومال لا نودن كترسن هاي بله ما أنت السلطان كاسو شرفتي أنا المقعد وذا اللي جاي هاي لما ينكرين أيها لا هو مهتزي maalintii uu dhashay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay waafaqday xafladda aynu maanta hayna halkan ee suldaanka aynu ku caleema saaraynaa inay waafaqday waa nasiib wanaag waa wax ilaahay nala kulmiyey oo maanta maaragtay yacni sharaf iyo qiimo inoole weey oo ayaamuhuba kala nasiib badane waxa weeyaan nasiib wanaagsan ayuu noqday maaragta caleema saarka suldaankaasi maaragtay abshir suldaan abshir xasan cali oo ah suldaan maanta yacni madax dhaqameedyada faraha badan leh ee halkaa jooga ku soo biiray ee sharafta leh ku soo biiray haddii ay yihiin maaragtay salaadiin hadday cuqaal yihiin hadday odayaashii dhaqanka ay yihiin inta maanta iskugu timid ee halkaa ku soo dhaweysay waxay maanta yacni nasiib ku yeesheen suldaanka maanta ku soo biiray ee maaragtay yacni madax dhaqameedka ku soo biiray nasiibka uu yeeshay ee uu waafaqay in la magacaabo maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u dhashay oo maalmaha oo dhan maaragtay yacni ugu sarraysa waa nasiib wanaag bay noo tahay nasiib wanaag bay noo tahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay sidaa ay maalintu maaragtay u wanaagsan tahay ay wax walba uga sarrayso inuu maaragtay yacni innagana sharaftaa aynu maanta iskugu nimid ee wax alla wixii madax dhaqameed ahaa ee iyo odayaal ahaa iyo maaragtay culimadii ahaa in alle intiinaasoo dhan waxaan ku soo dhawaynayaa yacni maaragtay in ilaahay yacni maaragtay maalintaa weyn sharafteeda in ilaahay kor inaga yeelo kor inuu ilaahay naga yeelo abaarahana uu inagaga jabiyo alla bariga maanta inuu maaragtay u joogno waa alla bari waxa weeyaan abaara inahaye abaarahana inuu inagaga jabiyo iyaan u niyoonaynaa suldaanka maaragtay soo dhaweyntiisa dee waxa weeyaan maanta waxay ku dhantahay kol hadday intaas oo madax dhaqameeda intaas oo musheekha intaas oo dhammi ay maaragtay maanta ku dhan tahay waxa weeyaan furitaanka unba aniga dee maaragtay yacni laygu soo dhaweeyey waan furay xafladiina way noo furan tahay raggii dee maaragtay yacni salaadiinta ahaa ee madaxda ahaa ee dalka ayaa ku dhane muujiya taageeradiinna waxaa hadda aan leenahay oo halkan isna saaxiibkii aan ku soo dhawaynayaa erey ka odhanaya oo ragga odayaasha inala fadhiya ah
agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha. marka hore waxaan runtii jecelahay inaan aad iyo aad u hambaliyeeyo suldaanka cusub ee maanta deegaankan gobolka Gabiley lagu caleema saarayo suldaan Abshir Xasan Cali oo ka mid noqon doona haddii Ilaahay yiraahdo imika wixii ka dambeeya salaadiinta waaweyn ee reer Somaliland. runtii waxa uu ka soo jeedaa reer qadiima reer ballaaran oo aanu runtii isku gobol iyo isku deegaanba runtii aanu nahay farxad weyn bay noo tahay. waxa uu ka soo jeedaa Sheekh Umar Warfaa oo ah sheekh albeledkii Gabiley. waxa uu ka soo jeedaa gobol runtii ku caana wax soo saarka guud ahaan runtii shacbiga reer Gabiley sida ay ugu soo baxeen qiimihiisa runtii la garanayo oo ummadda u joogta ee u taagan iyo meel ay kala marto runtii iyo xafladda loo qaban qaabiyeyba runtii la arkayo. aad iyo aad baanu u hambaliyeynaynaa waxaananu leenahay annagoo ku hadlayna magacii afka xukuumadda iyo afka xisbiga kulmiye labadaba waxaanu leenahay hambalyo hambalyo hambalyo. ilaahay waxaanu uga baryaynaa suldaanka cusub in hawsha loo cumaamaday kuma eka oo keliya beesha Akisho ama beelweynta wararkii oo keliya kuma eka Somaliland oo dhan baa runtii maanta cumaamaday oo maanta soo dhaweynaysa oo uu shaqadeeda qaban doono haddii Ilaahay idmo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu u fududeeyo hawsha ballaaran beesha hawlaheeda iyo beelaha kale xidhiidhkeedaba intaba runtii inuu Ilaahay u fududeeyo ayaanu ka baryaynaa. aad iyo aad baan u mahadsantihiin. waan hambaliyeynaynaa mar labaad suldaan Abshir Xasan Cali. hambalyo hambalyo hambalyo. taariikhdiisa iyo halka uu kaga yaalo Somaliland beelaheeda iyo guud ahaan inta Soomaaliya ku hadashaba hase yeeshee waxa hadda afkooda ku hadlaya aqoonyahan reerka ku abtirsada waa Maxamed Cali Faarax oo wax yar inooga taabanaya taariikhda reerka Akisho shacabka. السلام عليكم دمانتي ومحسنتين صلاتينتا عقاشة وديال دقميتك سياسيينتا مدحدا حزب وطني مرتي شرفت فرح بدن مرتي شرفت بدن كسو قيب كشي الرق يا دمر قال دمانتي واندي سلامية دمانتي واندي سلامية سلامتي إسلام كانت تقول سلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت مالين آدوي أو آدو قيمة بدن حق الدقنك ومدى الصومالية دولي قيد بوحي لهيد دقن بي لهيد بقري لهيد سلاطين بي لهيد ملاقية لهيد إسلام بي لهيد وقاسية لهيد وبري لهيد ويبديه magaca dhaqameedka Soomaalida way fara badan yihiin. kolka waxa kamida suldaanka kamida magacda loo bixiyo madax dhaqameedka Soomaalida. kolka maadaama maanta ay tahay maalin dhaqan wax yar baan idinka taabanayaa oo aan ku fogaanayn taariikhda reerkan Akisho. waxa la yiraahaa sanadii 460 إلى 760 تاريخ دول كاي هيد تاسو ديغا مثل تاريخ دا هجري وي تكلنا أهيد كل 315 ميلاد كان Akisho كلكا مسلم ما هينا ودنكو قالوا تقالدي waxay ahayd sayl cabay ahayd kolka Akisho soo gashay waa la yaqaana waxa la yiraahdo maalinta loo bixiyay magaca gaal la ka hadheen 22 bisha Shawaal sanadii 315 miilaadka ahayd waxaana lagu bixiyay buurta Boon ee magaalada Sayl Cali magaalada Boorama 70 kiiloomitir waqooyi ka xigta. waa taariikh qoran oo la yaqaano oo buugag badan ku qoran. inta kadib Akisho way kala jabtay inina halkay ku hadhay inina galbeedba u kacday. kolka intii halkan ku hadhay ee islaamtay haddana dee boqoradeedii halkii ka bilaabmeen. kolka haddii aan soo dhaadhacoon hoosta ka bilaabo
oo suldaan ka bilaabay abshir xasan cali gaal aabihii wuxuu ahaa farasfuulkii caamka awowgii cali ninkii faraskii xamar agshe lahaan jiray buu awowgii ahaa adeerkiina kolkaad hoos u dhaafto xabaalan ilmada dawaad maqasheen buu awowgoga toddobaad kolkaad kor u dhaafto badhaadho alla waa adeerkii boqorkii weynaaye halkaa haystay kolkaa badhaadho alloo boqor ahaa alloo boqor ahaa وايد واسدتي ولا اسمعني وايد هذا آموسا ما الله آموسه أسمع الله سيداك إسكندر حفلتي هذا ما كنا ما يصير ولنا حفلة مع مان تمرن حفلة لفنا مركينا حفلة شرفت له آموسا المغلا المسا أسمع الله هذه ما تمر هذه نتاعنا وايد صلا مغلا إنها هالكسر يتكسر كرسينا قيل الجاية وأشوتي هذا شوتي والله آموسا البرسي أبى نسوق عبيد يا وقت لما هي وعشان دقيقة ويا كل كا واحد إذا أوجي ساسوها فرد فول كي حملك شودي جريبو أوجيها على العقال عاقل وحكادين عقل موكاها أو كل كا هلك هروي رفتنا وحكي لي حبالة وتري هلك يكون رماني المدة دواء كونكتين كدبنا وحي برارة ألان قلنا لفعيسة ونسير دافنا ألان قلنا ونسير دافنا بقول نيكل أوريجينا عام كهاي على بوك مدوبة قلنا كلك كيو تنبيه كسر نقول واحد لأنك على بوريلو اللي ديره قرنا المهم حالته وبدن تاريخ مري الله بيه صدق كنا ما نسوا واحد بوجلك قريوي سيدا واحد لا كلك رير قديمة ما قال له يقان عرض بالا يرا عرض واحد له يدي أكش عرض واحد عالي بيوهيد علينا عرض مدحوين مدحوين نضرب عرضها ترينا ويريد سمالوها هالكاس قال يا هوي ولا لا أكيد هالكاس يكون ماتا والسلامتين وقت لما هي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلده ويا أحمد عبد الطباني قدوميها قدقة هوضة له واسمها كنيلي إسكت شيء دونا إسلام كان كذب الله والسلام كلية صعب. intaa waxaan raacinayaa lama badinayo dadka badan saddex kelmadood waxaan u soo jeedinayaa beelweynta akisho ee suldaan abshir soo dooratay saddex kelmadoodna waxaan u soo jeedinayaa suldaanka cusub oo tala ah suldaanka cusub waxaan u soo jeedinayaa suldaanka waxa ka mamnuuca ilaahay ha kaa dhigay kay ka mamnuuc tahay eexda iyo nin jacaylka bakhaylnimada iyo guddoonjilayca ilaahay kuu ka nabadgeliyo ha kaa dhigo beelweynta akisho ee sharaftay ee dooratay ee isku raacday annana aanu la weynaynay waxaan iyadana leeyahay war saddex arrimood iska ilaaliya marka hore reerku haddaanu suldaan lahayn ceeb kuma qabo laakiin suldaankiisa hadduu ay xumeeyaan ceeb buu ku qabaa waxaan leeyahay qodobka koowaad suldaanka haddaan noloshiisa meel lagu tiirin suldaan beer qodanaya maydaan arag oo dibi ku qodaya ku geella joogana maydaan arag haddaan nolosha suldaanka meel lagu tiirin suldaanku wanaaggaa ku doorateen yeelan maayo dadku shaxaadi teelen waa nafleey suldaanka waa ta koowaad taas suldaanka haddaydan la taliyayaal adadagu samaynin oo la taliya oo fikradda wanaagsan ay soo jeediyaan uu guddoomiye haddaydan u samaynin waa basharoo baydhbaydh baa ka iman kara qodobka saddexaad waxaa weeye suldaanka haddaydan huuriyada ka ilaalin reer soomaaliya intay suldaanka doortaan bay haddana ka tabaqayliya haddaydan huuriyada ka ilaalin kuwa caayo kuwa ka tabaqaylinaya aydaan ka ilaalin wanaaggiisii waxbaa u dhinmaaya waxaan leeyahay huuriyadana ha laga ilaaliyo waxaan ku soo gebagabaynayaa suldaanka maanta waa qiimaysan annana waannu idinla qiimaynay qiimihiisii kor baynu u qaadnay
in korqaadkaa kor loo qaadee la isugu yimi rag iyo dumar haweenyaal cirool iyo carruur xukuumadii xisbiyadii haddii aan taa lagu wadin waxbaa isbedeli doona sharafta uu soo hooyana akishoo dhan baa leh waxaan leeyahay sharafta iyo koruqaadka iyo qiimaynta maanta qiimayseen eanu idinla qiimaynay halkaa ay maraysa maanta ha laga sii wado ha laga sii wado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن هذا واحد مدة وحوغا بيركي ويبسوا دقيا هلكا كسي وضع عاموسكا لقاها فورا أبكي اسكو قبطة لقا يستقون هبلونا مسحرات هاي وعاوية وحاليا ليا حزبك وحزبك وطني أفياكي سور بابنتا جمع وبابنتا عبد الرشيد وحوغي سور بابنتا عبد الرشيد حسن وطن واسمه بالهطا تاقيرين سنوما كلا مغليه هاي بصوا يروه ريال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبك أول رئيسا وحن بلشوينتك السلام يا مناسبة دلشة النبي عليه الصلاة والسلام وحن لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز حقا مناسبة أن شونا ومناسبة قيمة هذا له ومناسبة لو على مسار يا السودان كبيش أكيشة ومناسبة دقان وحن مركز أول رئيسا لهاي همبل يا السودان كا إلهينا كادو السودان جرا marka hore suldaanka isku reebo jaalanahay Sheekh Cabdiraxmaan oo halkan ka hadlayay walaalkiisu kalaas banay xildhibaankii ugu horeeyay beesha u soo baxay xisbigii Niyuucid ee hogaaminaynay ee nasiib darrada ku dhacday ayuu ahaa oo ninka halka soo fadhiya aniga iyo beeshu isma xisbin anigu maanta waxaan matalayaa xisbiga wadani waad ogtiin oo wanagii ka soo xisbiga ay darradu naga dhacday ka soo tagnay laakiin meel kale oo bulshada laga caawin karo ayaanu nimi oo ah meel isbedel laga sameyn karo waa wadani taasina waxa weeye marka maanta codkeeda aan ku hadlayo aanu ahay xogayaha warfaafinta waqtiga xaadirka ah waxaan leeyahay munaasabadani waa munaasabad qaaliya waa munaasabada qureed anigu ma jeclib inaan afkayga qabiil kaga hadlo laakiin maanta munaasabada la jooga waa munaasabad dhaqan waa meesha qureed loo ogol yahay in looga hadli karo magaca bulshaweynta iyo bahaweynta beesha akisho oo taariikh dheer leh waan ku hambaliyeynayaa waxa aad loo ammaanay laga mahad sheegtay dhalinyarada xaflad ka shaqaynaysa ilaahay gacan weyn buu na siiyey ugaas cabdilaahi cabdi xasan حوالي وصاحبك وصاحبك أصير أيسو وأحب على الجيني سلطان شريف فتوم وهكذا اللي كتشيدين إياه وأنا يروح يا واسكو شريفك وشريف فتوم سلطان صاحبك دي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan soo dhaweynayaa suldaanka cusub ee xafladiisii ay ku soo beegantay maalintii rasuulku dhashay dhistay dhintay oo maalin taariikh dalka adduunka islaamka oo dhan ugu jirta oo ilaahay ku soo hagaajiyey ayaan ku soo dhaweynayaa madasha salaadiinta inuu ku soo dhawaado suldaan soo dhawow waanu ku leenahay waad ku soo dhawaanaysaa waanu kula shaqaynaynaa waanu ku garab joognaa waxa weeye lama kala sarreeyo dadku wuxuu ka soo jeedaa suldaanku beesha akishe ee madaxweyne dir madaxweyne dir buu ka soo jeedaa oo ah akishe gurgure iyo layile waxay isugu xigxigaan madooba dir madaluug dir iyo haddii aan faano maxadir oo anigu aan ka soo jeedo oo isaaq oo dhammi ka soo jeedo oo biyamaal iyo surre iyo qolada tuudsiga la yidhaahda
kolkaa waa reerahaa simane lama kala sarreeyey sidaasaynu ku nahay reero dirac oo irir samaale galo haweenaynu waa ku noqonaynaa beelaha ugu badan ee ugu ballaadhan baynu nahay waxaan ku soo dhawaynayaa waxa uu yahay beelaha dir oo dhan uu suldaanu yahay waxa weeye halkan aynu iminka joogno dadka soo sharfay ee meel walba ka yimi oo aan anigu sido gobolkii saaxil magaciisii iyo muuqiisii waxaan ku soo dhawaynayaa gobolkii oo isoo faray salaan naga gaarsii suldaanka cusub waxa weeye maalintii rasuulku la magac galay waanu inoo ducayn doonaa ilaahay inuu abaaraha inaga furto isagana ilaahay xilkaa loo egmaday uu ku asturo ayaan ugu ducaynayaa waayahay soo koobaa layleeyahay waxa weeye reerihii bari iyo galbeedba halkaa maanta xuduudday ka tallaabayeen ilaahay abaartaa inaga soo furto ilaahay raxmad degdeg ahayna siiyo ilaahay barwaaqo dhulkeenna ku soo celiyo ilaahay intiisu qalbi furan allah inaga yeelo wixii la odhan lahaa badankiisa waxa yidhi salaadiintii iga horraysay dadkii iga horreeyey reerkana kishe suldaanka cusub suldaan abshir cali xasan ilaahay waxaan uga baryayaa inuu noqdo xafladda aynu ku caleema saarayna maalintii dhalashadii nebigeenna inuu raxmaadka ilaahay darteed degdeg inoo siiyo ta aynu ugu baahanna ugu weyni waa taa ta labaad reerkana kishe waxa weeyaan curadkii mudankii dir waa mudankii iyagaa kow ah iyagaa curadkii ah waxa weeyaan markii dalkan wax ka dhaceen qoladii boqolka inan samaysay ee ku dhaartay inaan gibiilay la furfurannin ee ilaaliyey inaan gibiilay aqalleeda la furfuran anigu waxaan ku garaadsaday dooxyadan waqooyiga oo dhan magacyadoodu waxay ku yaalliin magacyadooda ayay ku wada suntan yihiin waxaa la yidhaahdaa so'da warramiyo so'da warradayo booraca burcooyinka warramiyo burcooyinka warrakiyo waxa weeyaan beerahoodii bay ahaayeen anigu waan ku garaadsadoo maqashaan ku raaci jiray iyaga ayaynu ka soo wada jeednaa sidii uu sheegay suldaankii iga horreeyey waa runtiisa waxa weeyaan reerka keliya ee aynu ku wada xidhannahay ee dhulkana inooga soo horreeyey dhalashadana aynu ka soo wada jeedno waa runtiisa ma badinaayo waxaan leeyahay dadka laba wax baynu dheernahay haddaynu nahay inteennan galbeedka degtaa waxaynu dheernahay akisho iyo madigaan iyo geedka sogsogta la yidhaah guuleed xaaji baa sheegay dad ahaan waxaynu dheernay intaa akisho iyo madigaan iyo gurguraynu dheernahay bariga dhirtana waxaynu dheernay geedka sogsogta la yidhaah waa taa maanta abaartii geedkii sogsogtaa lagu baxsanaayo ilaahay waxaynu baryanaa inuu raxmaadka inoo raaciyo suldaanka waxaannu leenahay intayadii kaa soo horraysay waannu ku berber taagannahay golahaannu kugu soo dhowaynaynaa waannu ku ixtiraamaynaa reerkuna sidaa hortay la sheegay wixiina yidhi lagama daba yidhaahdee suldaanka waa in la ilaaliyaa sharaftiisa waa in la ilaaliyaa dhaqankiisa waa in la ilaaliyaa annaguna waannu ku ilaalinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa inoo xigaya hadda siciid aadan axmed oo ka tirsan xisbiga kulmiye xisbiga talada dalkaaya soo dhowaada shacabka waxaan halkan hambalyo ballaadhan u soo jeedinayaa suldaanka maanta farxaddiisii aynu u fadhinno anigoo farriin gaara uga sidaa guddoomiyihii xisbiga oo si gaara ugu hambaliyeeyey musharaxii xisbiga mudane muuse biixi cabdi oo si gaara oo kal iyo laab leh
ugu hambaliyeeyey suldaan abshir xasan cali guddoomiyuhu sidoo kale wuxuu kool gaara ugu soo diray suldaanka si uu ugu hambaliyeeyo oo uu dhiibto kaalintiisa xafladda farxadda leh mar labaad anigoo ku hadlaya afka xisbiga kulmiye ajandayaashiisa horumarineed ayaa waxaa ka mid ah in delegation of authority in la fududeeyo oo loo xil saaro shaqooyinka la qayqaybiyo oo nin walba shaqo loo diro guddoomiyuhu waxa uu ku maqan yahay boorama xaflad ballaadhan oo halkaa kaga qaybgelaya waa ka cudur daartay laakiin kaalintiisii rag badan oo oday dhaqameedya leh oo hogaamiya leh ayaa inoo fadhiya waxaan u malaynayaa maanta xafladdani waxay ku suntan tahay waa xisbiga kulmiye waan maqlayay xisbigii waddani oo la magacdhabayo laakiin ilama aha magacaasunbaa ka soo galay laakiin xisbiga kulmiye waa reerkii uu ku dhaadanayey ee tiifiyada ka daawateen in ay ku kulmeen odayaal halkaa ku kulmaya waxaan isleeyahay waa kaftan bay iga tahay xisbiga kulmiye waddani kaftan bay arrintaas iga tahay laakiin waa dhab reerku wuu yaqaanaa xisbiga kulmiye wuxuu yahay reerku waa tashadeen xisbiga kulmiye wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan xisbiyada ugu badan xisbiga ugu muhiimsan ee ay diradda saarayaan waxaan aad ugu hambalyaynayaa mar labaad suldaan abshir xasan cali oo ah nin karti badan oo si gaara aan u aqaano waxaan leeyahay ilaahay ha kuu fududeeyo xilkaad qaaday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suldaankan aynu maanta halkan isugu nimi oo aan leenahay ilaahay hawshiisa ha u fududeeyo halkan ku calaama saarino suldaan abshir isagoo maanta ay tahay maalin weyn oo ah maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee mawliidkiisa loo dabaaldegayey aad iyo aad baa ilaahay baa mahad iska leh uu la soo kulmiyey baan aad iyo aad isagana ugu mahadnaqaynaa ilaahay la soo kulmiyey baan u mahadnaqaynaa waxaa kaloo halkana suldaanka aan ka leenahay hambaliyo suldaan hambaliyo waxaad ku soo biirtay salaadiintii waxaad ku soo biirtay beelaha somalilan waxaanu ilaahadakii waxaad ka soo qayb gashay maalin sharaf leh oo maanta aad iyo aad looga maamusaya adduunyada oo dhan xafladdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo xafladdaadii baa kulmay waa loo xoologoyn jiray waxaa loo dhisay inan yar baa loo dhisi jiray kow maanta tii waxaan ku leeyahay dee waxaa beddelay hab magaalo casri baa beddelay gaadhi laanguruusaro horta ba'da waa laydinka doonayaa ku mayiya magaalo joogaba iyo ku qurbaha joogaba suldaanka sharaftiisii waa laydinka rabaa waxaa laydinka rabaayoo kale suldaanku aqal weynuu ku noolaada dee suldaanku inuu sharaf yeeshaa la rabaa ma aha suldaan suuqa jooga oo suuqa lageeya laydinkama baahna beelweynta markaan la hadlayo dibaddiiyo dalka inta joogtaba waayo dhaqankan dambe waxaan doonayaa beelahani maadaama ay tahay beelihii ugu facweynaa soomaaliya wixii af soomaaliya kuba hadla ama wixii somalilan deegaan u ah iyo dalalka kale jaarka aynu nahayba inuu suldaankoodaasi ka qaarsanaado suldaanka kale oo ay u muujiyaan sulaadiinta kale inuu la mid noqdo wuxuu dheeraada mooye inuuna waxba ka hoosaynin suldaan waxa weeye sharaftaaday ku xidhan tahay xukuumad lagama fogaado macaarid waxba looma dhega taago waxaan leeyahay suldaan xukuumadda garabso xukuumadda xusbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa garabso xukuumad ha ka fogaanin intaasi waa iga talo waxa weeye suldaan reerkan faca weyn leh ee halkan jooga ee ku soo maamusay halkan ku keenay habeen dhawaad waxaan ka daawanaya qaar xamar joogoo leh annagu qoladaa waxba yaan la noogu darin qoladaa yaan waxba la noogu darin
kuwaasi baadi bay ahayn iyo kuwa halkaa joogayba dad isku mida baynu nahay waxbaynu wada leenahay dad wax kala sheegta ma yihiin suldaan dadka ku soo dhoweey awalba way ku soo la mid bay haayeen suldaan waxa lagaa doonayaa inaad xidhiidhiso ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo cidda oo wadaag leedahayba waxa suldaan waxa la yidhi suldaannimada saddex baa disha garjicisan gacan guran iyo guddoon maxaa la yidhi saddexdaasaa dilaa la yidhi insha allah nin waxayaa kolley waxba akran maayo adiguna de waxba hariirkaysa suldaan waxa lagaa doonayaa ilaahay caafimaad ha ku siiyo ilaahay xilkaa kula qabto ilaahay ummadda aad u guntatay ilaahay halka ugu habboon ha kugu hagaajiyo waanu kuu ducaynaynaa salaadiin ahaan waanu ku soo dhowaynaynaa waanu ku barbar taagannahay waxaad nooga baahdoon diyaar baanu nahay assalaamu calaykum aad baan u mahadsantahay suldaanka ayaan leeyahay suldaan abshir shacabkaada waa loo leeyahay caleemasaarkiisa cidi kama maqnaa bahday dhinaca camalka iyo shaqada iyo meheradda walaalaha ku ahaayeen raggii saaxiibbadii ahaa sariiflayaashii waaweynaa ee magaalada Hargeysa iyana cidi kama maqnaa waa kan Barkad Axmed Caateeye oo ku hadlaya afka ganacsatada sariiflayaasha oo suldaanka u habaneynaya weliba marka waystay ii faaneen marka waytaanu halka ku wada sheekaysanaynay ii faaneen waxayna anagu haddaanu sariiflayaasha nahay 3 suldaan baan leedahay markaasaan baha warfaafintaa la sugaagoodaa fadlan lagu calaytaano garana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta farxad weyn bay ii tahay taasoo ah salaadiinta ka soo baxda sariflayaasha ama qaybta ganacsatada waxa weeyaan waa suldaan abshir xasan cali waxa ka soo baxay suldaan ismaaciil marka waxa weeyaan sariflayaasha had iyo jeer waxa ka soo baxa salaadiinta ugu qaalisan salaadiinta Soomaaliland marka anaga farxad bay noo tahay qaar ka dambeeyana way soo socotaa marka waxa leenahay hambaliyo ayaan ku leenahay abshir mid kalena waan ku darsanayaa anigu waxaan hay golaha dhexe ee wadani waxaan leenahay halka waxa ka buuxa wadani iyaga hareer jooga suldaanka iyagaa soo gacan qabtay dawladdu waxaan waxay ku leeyihiin laakiin anaga hareer jooga qaaliya halkan suldaan shariif wuxuu ka sheegay qoladayadan xagga reer waqooyigu la yiraahdo magaca sheegan jirtay carabiya waxbaanu berigii hore ku abtirsan jirnay laakiin dadka meeshan degan waa wada dir anigu waxaan ku soo ogaaday raggii la berbera laga qabtanahay laanta buurbaa la geeyey sanad iyo 3 bilood baan ku xidhnaa ciddan uga faysay waxay ahaayeen nimanka la yiraahdo biyamaal dir waa naloo soo abtiriyey bal hadda dhegaysta haddaynu kala nahay reero isku reer baynu nahay haddii gabala kaadheen lahaa gabala kaadheen un baynu wada nahay walaalayaal waxa weeye maanta suldaan ducaysan oo maalinta ku soo hagaagay ayaan walaalayaal caleema saaray waxaan intaa raacinayaa oo kaftan yar aan ku raacinayaa waxaad tidhahdeen suldaanka inad hala siiya suldaankii halkan hore ka hadlay baa yidhi anigu waxaan nahay qoladayadan halkan soo jirtay subeerawal qoladu la xididka ahaa dee inantayadu hadday u guurinayso waanu ku barbargelaynaa arrinta suldaankana haddaanu nahay qoladan subeerawal inayna soo gaadho oo aanu dhinacayaga dhisno mar haddii miweynadiiba annaga tahay inaannu saru qaadno oo dhinacayaga dhisno dee ayaa nagu waajiba inantuna dee hadday suldaanka dhisayso iyada ayaa ku mahadsan intaas waxaan sii raacinayaa laba kelmad yar oo keliya kelmaddaas waxay tahay walaalayaal haddii aad tihiin beeshan akijo ee warrankiiyo waa salaamantiin hambaliyo suldaan abshir xasan cali hambaliyo intaasi waa hambalyo iyo salaan aan kula socday intaa kadib waxaan suldaanka kula dardaarmayaa suldaan abshir cali xasan inuu beesha soo dooratay iyo guud ahaanba ummadda ugu shaqeeyo sinaan iyo cadaalad xilka la saaray ee culus kelmaddaasina waa dardaaran
اللهم صل على محمد guudahaanna waan salaamayaa madasha salaadiinta xuqaasha siyaasiyiinta xusbiyada bacda saxaafadda oo runtii iyaguna door weyn ku leh hawlaha qaranka oo dhan ka shaqeeya aad iyo aad baan idinkana idiin salaamaya iyo guud ahaan dhalinyarada iyo waayeelkii waxgaradkaba waan soo gaabinayaa raggii hore dardaaran dhameeyey dardaaranku waa intii hore maalin qaalaya oo maalintii mawlidul nabiga ayay xafladaadana ku hagaagtay والسلام عليكم ورحمة الله. دار يا قاعن قرن ودول جلعسن هي قرأ حلوة ذا بإلهي كاكر يرون خلاه السلطان. سلطانكو مركز السلطان كلا على مسار السلطانكو واجد دمرة سلطانكو نعد قارو سلطان هذا ماها سلطانكو وايرو نحن نقضو سلطانكو وايرو دتك سعدالتكو هجاميو إلهي كادك السلطان كي عدالتكو هجاميو ومدرسة إلى إن شاء الله بإذن الله الكريم. وحوين ما أنت واحد كوسو بيرتي فهدي السرادين تا وحنا نكوا على مسارنا قبل كي قبل هذا الصومالي لان أيام ما تكوا على مسارنا قبل كي قبل هو قبل هذا الصومالي لان وأنا مالن قالي هو موتلمي بي كان واحد هالشيء كان واحد هالشيء نصيب هذا هالشيء إن سرادين تقوم تفردا يا حسام تقرنك يا بعوي تطمرك يا بيش عكشنا aad baan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay waxaan uga baryayaa ummadda Soomaaliland ee gobolka Gabiley ku soo jabtay inuu ilaahay abaaraha inaga soo jabiyo inuu ilaahay roobka inoo liso ilaahay abaaraha inaga soo jabiyo ilaahay bogeena burcaraysu mariyo ilaahay dadka soo dadbaday bari iyo galbeedba ilaahay waxaad inoo baridaan raxmad inuu ilaahay raxmad inoo shubaan inoo bariyana suldaanka cusubna roobka inoogu duceeyo dadkuna hay soo saamaxaan inta goobta joogta waxba yaa la kala xusuudumina hal soo saamaxo ummadda Soomaaliland hay soo saamaxdo ilaahay cinka muddo khayr qaba ha inooga shubo waxa weeyaan xafladu waa xaflad dhaqana xafladu markay dhaqan tahay siyaasaddu waa ka mamnuuc siyaasadi waxa weeyaan kaftankii hore intii hore hay naga eekaado salaadiintuna dadka dhaxaw noqdaan si hadhow haday wax dhacaan dadka iyagu kala qabtaan oo yaani gees ma safan wassalaamu calaykum waxaan leeyahay idan boqorka hal baan leeyahay suldaanka waxaad yeeshaa akisho suldaan waxay yeelatay adag oo isaaq iyo daaroodba caabiyey oo la gudbamay oo miisaaniyadiisii iyo maskaxdiisii iyo caqligiisii haddaad tahay cali cigaal tahay ood cali ku abtirsato waxbaa ku aasan waxaan leeyahay noqo sidii suudaanooda waa noqo akisho hadaka hore dirigaba ka timid oo way ag fadhidaa akisho abaayo af soomaaliba wixii akisho uu noqday suldaan
adiguna u noqo oo nin adag noqo kol haddaad tahay cali cigaala waa yahay dee akishaba faraskiisiga magaca haystay maxamed akish waxaad yeelaysaa mid kalean cudurdaar ka bixinaya waxa weeye salaadiintan hadlaysaa waxaad moodaa in reerkiina lagaga murmayo akisho oo cid kale nagu haysato waxay ahayd walaalaya salaadiinta jibriil oo boqor inay shirka u hor fursay ahayd inay ma arkaysaa iyadu soo gashahay waladaana waxaan leehay boolojiis waxaan idinku siinayaa martaa laynoo yahay kol haddii marti laynoo yahay raalli hal ayaynu ahaanaynaa sidaasaynu ku ahaanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa horta waxalla wixii la odhan jiray hortay baa la yidhi hadal dabadii iyo hilba dabadood iyo hayaan dabadii saddexdaaba waa nacay buu yidhi hadal dabadii waa nacay buu yidhoo dee wixii la odhan jiray hortaabaa la yidhi hilba dabadoodna waa nacay buu yidhoo dee haddii la cuno lafaa loogu tagaa hayaan dabadiina waa nacay buu yidhoo haddii reerkaagu beesha warar gaadhi waayo oo uu dambeeyo dee siiguunbuu ugu tagaa meesha marka gibilku daaqa ninkii garanaya intaasi waa iga inta kale akisha waa beelweyn laakiin warrakiiyo maanta hal baan leehay suldaankana hal baan leehay warrakiiyo hal baan leehay oo hortayna waa la yidhi haddii suldaanku waa ka geedka loogu yimaado ee inoo geeya laydhaa ee waxa laysku qabsado loola yimaado haddii aad ka dhigi weydaan idinku sidaa wuu soconi dee kolba meel buu tegi haddaad ka dhigtaanna geedkaa loogu imani oo war suldaankii inoo geeyaa la odhani suldaanku sidaasuu magac ku leeyahay idinka waxaan idin leehay sidaa ka dhiga oo suldaan socda oo kolba meel taga yuu noqonayaa ka furta suldaankana hal baan leehay suldaanow arrinkaaga suldaanow anfacaaga wan xalaala ka yeel suldaanow arrinkaaga odayaa la diraayo bal soo eeg la yidhaaye afnuglaagna iska jir intaasi wayga intaase waxaan leeyahay waar akishooy waar warrakiyooy anuu suldaanoodawa baan la shaqeeyey suldaanoodawa ayaanu jigjiga ku wada jiroo la shaqeeyey xoolahan loodaan ka kaxeeyey albaase ee qoladii baashii dabagaruubka laga turqaya ay baxday ee etoobiya ay adari tagtay suldaanoodawa un baan u tegay oo saacaddiiba siligii lagu hadlayay buu ku hadlay haddaad iman weydaan anagu kuma jirrun buu yidhi waxaan ku leeyahay sidii suldaanoodawa u shaqee sidii u dadka iskugu mid ahaa u noqo warrakiya laguma caleema saarin akishana laguma caleema saarin somalilan baa lagu caleema saaray waxaanad yeeshaa intii wada jiri jirtay ee isdhashay siday iskugu xidhnayd ee odawaa isugu xidhi jiray iskugu xidh sidaasaan ku leeyahay annaguna waannu kula shaqaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mid baan leeyahayoo salaadiin haddii aynu nahay waxaa sax ah in innaku aynu dhex ahaanaa sax meesha dhaqankana in laga ilaaliyo siyaasaddaa sax aad iyo aad bay ayaan uga xumahay anigu in halka dhaqanka lagu yoonyoontamaa ma fiicno xisbiyada qaranka aad baan u salaamayaa xukuumadda qarankana aad baan u salaamayaa halkaa waxaa ka soo jeedaa faysal cali sheekh uu mujaahid weyn ahaa aanu ilaa qaaxo wada joognay ninkii qaaliga ahaa ee aadashiine adeer ruma uu ahaa halgamaagii ugu hodabaxayna uu la socdo oo aadan buu la socday cabdirashiid xasan mataan baa halkaa ka soo jeeda dhammaan xisbiyada qaranka iyo mas-uuliyiinta dowladda waan salaamayaa dhaqanka kalena waan salaamayaa waxaan leeyahay somalilan baa layna yidhaahdaa dal qaranaynu nahay abshir saalax shalay qabiil buu ahaa maanta waa qaran jamhuuriyadda somalilan buu u yahay suldaan oo loo calamaysa
yoonyoontanka halkan in laga dhagaysto ama meelaha dhaqanka aynu isku calayma saarayno in xisbiyada iyo magaranaysa haddii xukuumaddu ay ku murmaana xaaraan weeyaan waxaan leeyahay allah weyne waaxidihii ninkaa aynu calayma saaree qaaliga ah ilaahay xilkaa ku asturo ilaahay xilkaa ku asturo ummadda soo calayma saartayna ilaahay ha ka ajri siiyo isagana kii somalilan wuxuu qabtay allah ha ka yeelo ilaahay kii somalilan wuxuu qabtay iyo ummaddeeda wax alla ka yeelo maalin sharaf lana waa la calayma saaray waxaan leeyahay allah weyne waaxid abaar baynu ku jirnaa ilaahay abaarta hay naga soo saaro nin walibana ha garto wixii uu ilaahay u igmaday ee allah uu kala xisaabtamayo ka xukuumad ahaan ha gartaan xisbi ahaan ha gartaan dhaqan ahaan ha gartaan waxaan leeyahay allah weyne waaxid xaqa hay nagu sugo allah weyne waaxid xaqa hay nagu sugo السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم horta waan ka xumahay in adeerkay oo ah suldaanka guud ee beesha Akisho kala dhashay beelweynta warakiyo inaan maanta ka xabeebsaday horta waan ka xumahay laakiin ilaahay baa keeno alxamdulillah halkankiisa ku xabeebsaday haddana intii kartidayda waan hadli halkan waxaa ka salaamaya dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay madashan sida fiican loo soo agaasimay ee loo soo abaabulay waxaan kaloo ka salaamayaa dhammaan salaadiinta ugaasiyada oday dhaqameedka saddexda xisbi qaran madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siiraayo waa madaxweynaheenii aad baan u salaamayaa waxaan kaloo ka salaamayaa suldaankayga qaaliga سلطان أبشر سلطان حسن علي عقال سلطان نبي اسكو بجران ويكال سلطاني ويكال سلطاني فرحتينا ما أنت دارك فرحتينا كل واحد كيسان أنا قلت ميري أكيد قريرين إيان ما أنت فرحت درتك أن قرير هي وحن أكلمك كسلام يا خير أبتغي دماتو سيدات الشيخ خداي يا كسلام يا أنا أقول سلام يولينا تحكم يا بيصير وحالة قبلها بين بارك ماله برويانو إسلام كوبت بهدية هو أنا بارنا يربو بس كنا حجاب هذا صعبك سيداتي شيخ داري وسلام يا دمع الصومالي وسلام يا درية دامت بيدل وسلام يا وعيسى كنبوسي كبي وسلام يا صداك لدورتي وسلام يا صداك لدورتي سندي أكيشو دشي عورد علي داليو دوحة علي عيال دما يستيرانو مدالا شادوكي وقفتا دشي عورد علي داليو دوحة رير تركي دما يستيرانو مدالا شادوكي وقفتا أكيشا دادو ما قشيبان كو معناين هيها أكيشو عينك إيتهان كو عداين هيها أكيشو وعدولدو وضرية أصلية هدانا وعدولدو وضنتي سميت دروايانو دونيدا ويؤمدين هدانا أولا كأرلي قابلوغي مشاخ ويانا ميديك تاسي لاغا مدقو إلا هذا استوي هبادو سارنتاي أدوكو بوود لأي أي رأيلي ببتايما ميانا يعين أنا قلت كي كل هذا ليا أو أنك شعلي أو إسميين تحبر أمبرنا وقول هذا ليا وحلا يعني تلكايو بدايو وبلاد هي ما كلا قاضيه ويسكو قابان هي لبي يتبكوغ تشيليب هدوان شعلهاي
ma kala qaadayo waysku qabanaya midkaan riixa midkaan raarta seexiya midkaan caaya midkaan caanaha ulisa 12 kooga jilib baanan kala jeclayn oo tolkay waan jecelehe cadowgood ha jabo aniga abtiya haladay unka lama sinayn halkaan caanaha kanuhu gacajiibahayd ayaan sanayey abtiris googu wuxuu galaa goobtii shaqisa xaq dhaleen cidi gaadhi karin haddana habar awasha oon cidi hayrsan karin goobtaa sacad muuse iyo safiyada sarsare xariirta jibriil abokor een xumaan lahayn xaraga loo deystaye xajiyada u badan 4 ilma abokor baan dee salaamayaa makaayil abtigood ayaan dee salaamayaa haddana habar jeclo ayaan dee salaamayaa haddana habar yoonis baan dee salaamayaa garxajisoo ii dhambaan dee salaamayaa arab buruud laawalehe dee salaamayaa tabjeclaya abyub ayo umuda baan dee salaamayaa aniga abtigaaladay ima kala dhacaan dhammaantood waan jeclehe cadowgood ha jabo suldaanka la doortay baan dee dardaarayaa suldaan waan ku doorane kii dadaalay noqo suldaan waan ku doorane kiina deeqay noqo suldaan ehelkaaga dhagi hisu waa diyaar hanagu saaduula waran kaga diirsanaa in adeerkay rumow ku adeerkay dhalay dhammaystiran oo wadaan ku dhawaaqayaa haddaanan ku faanin ficil kuugu tumin waleehilbahaygiyow heedha kulama dhalaan bamba ma laa tuuray bara fun ma lagu bilbilay cadarkii horta ma lagu shubay in adeerkay bamba ma laa tuuray bara fun ma lagu bilbilay ma loo bishaareeyey boqor kii in adeerkay fardaha qoobkoogu dhulka wuu qaradhin lahaa ee barbayga dheeraadayo kilalkii fadhiya dhammaantood deeyana waan salaamayaa halkay joogaan bahambal yaan u dirahayaa dhammaan reer tolkay walehe waan salaamayaa oo waan ku dhaartahayo bahay baa ahaa allah igu dhaabay dhihi googa qaaliga ma kala qaad qaadaye way isku qabanayaa abshira waan kuu ducee yee dadka u hore sidii nebi maxamed nuur kiisa laga heliyo calayhi salaatu wasalaam maanta wuxuu ku soo beegay aniguna intaa sidii nebi maxamed nuur kiisa laga heliyodahayey ilaahay shaw wuxuu la sugayey inuu maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dhashay ee loo tumayey aynu faraxsanayn uu ku soo beego waxaa lahay sidii nebi maxamed nuur kiisa laga heliyo sidii sayid cali fadhiga looga saarakaciyow sidii cumar binu khadaab looga wada badiyow da'diisa u roonow dayax noo iftiimayow war shilcad buureeda biya shalow ka soo rogmaaday shaninka roonow shishee yuwa kaa cabsado carabkaada merabow cana kaaga yeel oo raggaad ka tilmaamantee taasha kaa qutomo waxaan ku soo dhawaynayaa imikana xiriiriyaha qaaliga ee sida fiican u xidhiidhinayay ku soo dhawow maxamed cali weji waaba wariyaasha wawnaaye maxaa laygu sheegi waayey dhammaantii waan salaamaya waxaan aad iyo aad u salaamayaa
intii ka hawl gashay xafladdan ee ka shaqaysay beelweynta akisho siiba beesha warrakiyo oo hannu nahay dad walaala ah oo jaara oo labadaa aqale eega idiin muuqda labada midna waa kayga midna waa ka suldaanka aan dooranayno weeyaan maanta laga bilaabo waxaa aniga ii farxada suldaanku waa suldaankaygii halkan kollay waa la ysku faanay waxaan maanta anigu ku faanayaa aan leeyahay ummaddan intaa leegee sharafta leh ee soo ajiibtay suldaanka ka qaybgalkiisa ee waxoogii oo howlahoogii ka soo kacay waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa anigoo ah ninkii gogasha dhigay ee deegaanka anigoo ah aad baan idinku mahadnaqayaa suldaankana waxaan ahay kaaliyihiisa koowaad ee ag fadhiya ee berri sidii cabdilaahi qalinla fariid sheegay gacmihiisa ah ee lagaga tegayo waxa isku faanay halkan waan soo gaabinayaae xisbiyada qaranku in yar bay isku dhiibdhiibeen saaxiib halkan suldaanada faalleeyey ka soo baxay suldaanada sarriflayaasha kollay intii horeynu aragnay waxay ahaayeen suldaanada kuwa ugu muuq dheer ama ugu horreeya ilaahay suldaankanna ha inooga dhiga suldaan abshir suldaanadii hore ku la mida ee sarrifayaasha ka soo baxay allah inooga dhigo howlaha loo doortay waa howlo aad u ballaadhan ilaahay garabkiisa ha ku galo allaha ku asturo beelweynta dooratayna dardaarankii odayaasha ama ugaasyadu dhammeeyeen kollay wax dhaafsiisan anuu ku dari maayo kii uun baan ayiidayaa waayo dee kollay waa loo sheegay wax alla wax la dhaafay ma jiro anna kii baan ayiidayaa intaasaan kaga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu yeelayaa hadda waynu gabagabadii baynu ku dhownahay adkaysta waxyar bay noo dhiman waynu kala tegaynaa mardhow xafladuna waxay ku dhammaanaysa si wanaagsan oo khayr leh waxaynu joognaa gunaantii iyo gabagabadii hadda waxaanu yeelayaa xildhibaanka reerka oo layni lagama teegi karo xildhibaan aad buu jeceliye weeye waxa weeyaan inta igala hadashay waad yaabaysaa waa xildhibaan lahmi oo aan leeya ku soo dhowaato sacabka way بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر سومانا نلطو سومانا نلطو باويتا كشنا نلطو كيرو توغا أن عاديات باجي سلامية أنا وحنا حدبانكي بلا ما تهالكن سبويمي أي عود كوغي يمال كوغي ينفتو ذبا يغرن وأنا كوي دورتي وحنا لي عاديات بارتو سلامية goobtan maanta aan joogno ee suldaanka lagu caleema saarayo waa goobtii aniga laygu sameeyey guriga labadaryaalaha ee dhammaan baaweynta akisho ay isugu timi aad iyo aad baan isla tii maantana teedi weeyaan ma aha wax ay bilaabeen iminka waa wax ay hore u wadeen waxaan leeyahay hal midun baan waa ka hadlayaa waxaan leeyahay kollay suldaanka maanta aanu goobtan keennay waa suldaan dhiigga aanu ka soo qaadnay oo aanu soo qiimaynay waxaan leeyahay suldaan sidii aanu kaa filaynay ayaanu kaa heli doonaa insha allahu waxa kale oo aan halkan ka raacinayaa dhammaan waxaan hadda aad iyo aad u salaamayaa cuqaasha waxaan salaamayaa cuqaasha waxaan salaamayaa siyaasiyiinta xisbiyada qaranka baaweynta xisbiga kulmiye oo rag baaxad weyne ay ka fadhiyaan goobta waxaa kaloo salaamayaa xisbiga waddani waxaa kaloo aan salaamayaa dhammaan cid kasta oo soo ajiibtay maanta madasha suldaanka loogu sameeyey xafladda waxaan kaloo leeyahay waa horaan loo weli inaga reeba siyaasaddu waxaan leeyahay dhammaan goobta aynu joognaa waa gobolka gabiley waa gobolkii cagaarnaa waxaana ku sultan waa lagu yaqaanaa waa xisbiga kulmiye ayaa ku sultan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gabagabadii joognaa iyo gunaanadkii waxaan leeyahay mar kalaa lay hambalyo suldaanka waxaanu yeelayaa dhallinyarada guddiga noloshan quruxda badan leh xafladdan haybadda leh dadkiina sharaftani ka soo qayb galay nidaamkaad arkaysay u socotay suldaanka lagu calayna saarayey wakhtiga badan u huray ee soo qabaqaabiyey anoo idinka wakiilaan idin leeyahay sacabka waxaanu yeelayaa maxamed oo ka warrama bal guddigaa qabaqaabadooda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجهرين وحن هالكن ضمان كودي جهدان لهاي وجمع هذا نقينا عقاش ماموس كأي شرفت ينجم وضن دمان توتواتي بي دعوة عنو في ذناي وحن نصيده كلا هالكن وجمع هذا نقينا مسؤولين تقرنك حسبك كلمية وأنان إلو بين دورك وكلها قبل قابضة حفلة يكسوق يبغل كيسبة waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa dhammaan axsaabta kale ee ka soo qayb gashay aqoon-yahanada xildhibaanada martida sharafta leh haweenweynaha dhammaantood runtii ma fududayn in la qabto xaflad caleemasaar oo loo qabanayo suldaan akisho oo somalilan waxay ahayd run ahaantii xaflad ay ku baxday waqti badan juhdi badan iyo dadaal fara badan oo gudayo dibadba leh waxaan run ahaantii haddaanu nahay guddiga aanu ugu horeyn u mahadnaqaynaa xildhibaanka akisho ee golaha guurtida oo run ahaantii dowr weyn ka qaatay qabsoomidda xafladdan xildhibaan sheekh maxamed aw cumar fure cumar baan u jeedaa waxaanu sidoo kale u mahadnaqaynaa ganacsatada beesha oo runtii dowr muhiima ka qaadatay waxaan halkan ugu horraysiinayaa maxamed xasan libaax محمد اللباح oo dowr muhiima ka qaatay qabsoomidda xafladdan waxaanan sidoo kale aanan iloobi karin ganacsade maxamed cabdi ibraahim maxamed dheere waxaanu sidoo kale u mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo ay ugu horeeyaan ururka dhalinyarta warakiyo ee gobolka magaalada Hargeysa ee Higsi Organization waxaanu sidoo kale u mahadnaqaynaa ururka dhalinyarta ee ka jira magaalada Wajaale oo runtii dowr muhiima ka qaatay qabsoomidda xafladdan waxaanan iloobi karin dhammaan jaaliyadaha reerku ay ku leeyihiin dibadda gaar ahaan qurba joogta reer Yurub oo maalin iyo habeen ka qayb qaadanayay qabsoomidda xafladdan aad mooday inay nala joogaan oo ay xafladda nala wadaan waxaan si gaar ah halkan hambalyo uga dirayaa oo dadaal dheeraada bixiyay abshir xuseen dheere waxaanan runtii iloobi karin oo xafladdan qabsoomideeda bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda ka qayb qaadanayay oo muhiim u ahaa labada caaqil ee reerku leeyihiin jiif caaqil qorane iyo caaqil xuseen dheere waxaan runtii u mahadnaqayaa dadka xafladda nagala qayb qaatay dhammaantood halkan kuma soo koobi karo magacyadooda halkan kuma soo koobi karo waxaa runtii qayb muhiima ka qaatay oo xafladdan nala socday in badan dadaal fara badanna ku bixiyey ugaas xawaareeye oo runtii aan ugu mahadnaqayno ilaa markaasi xalay saacado dambe nala shaqaynayay runtii waxaan jeclay in aad loogu sacbiyo ugaaska waayahay inagoo run ahaantii gabagabadii xafladda ku jirtnaa mahadnaqiyaan halkan ka wado waxaan jecelahay inaan si gaara ugu mahadnaqo marwo ka mid a marwooyinka xafladdeennan agaasimideeda iyo ka qayb qaadashadeeda runtii muhiim u ahayd oo ah halkanna hadalka iga horreysay oo ahaa kawsar sheekh maxamed ugu dambayntii waxaan anigoon halkaa dumarka ka bixin waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo maryam xadi oo ka mida markaasi haweenweynaha gobolka gabiley gaar ahaan xisbiga kulmiye oo aad looga yaqaano oo markaasi dadaal dheeraada ku lahayd qabanqaabada hawshan runtii ma soo koobi karayo aad baad u mahadsantihiin wixii khaladaad ee dhacay waan inaga raali gelinaynaa hadday noqoto cuqaasha salaadiinta xafladda waqtigeeda oo suldaanka ku soo dhaweyn doona hadalka ku soo dhawowgaas بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
هذا البدن قال لي منه وقت قوا قبابسي هذا وحنو قال لي دونا هدي لهيدمو سلطان كجود بلها كشو سلطان أبشر أيانو على مسار كيسي قال لي دونا هدي الله هو دليدمو وحن مركا إير أو كوبن أنك شيء دونا هدي الله هو دليدمو دقنك جمهورية الصومالي لان سلادينتو إنه يقشم ماها سياسة إنه كشكيان ماها مرادي دقن لتاقين هاي دقن كوحو ناكسين هاي سيدا شرفت له إيا كرامة له إن على مسار كاسو لغا شاكيو نبينا لغو صليو وحي وناكسين لغا وضح دون بامهيمتوت حسبيها لغا شاكي دولت بان لغا شاكي لو ما باهنا مات وحينو دردارة كيس مانتا سو تشادين دونا سلطانك وحاول لنا سلطان سد هذا حسب قرى سلطان بادو تاي سلطانك وحاول لنا ومدى الصومالي لان سلطان بادو تاي كوسمي سلطان وحان قدر داريا سلطان كي تيرا ايشوغ الله كادغو سلطان كي امدو اسكون بالنقطة الله كادغو سلطان كي إلهي إذا مكي صورت ما أنت ومولد كي رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام سلطان كاسم مالك خير قبتا أيو إلهي كيني إلهينا وحنو برينا كي ما أنت مركينو على مسار قصدا سينو على مسارنا كي رحماتك إلهي بريا قلبات با وكشمن إلهي برنا آمين دا آمين دا آمين دا وعن قصة دوين يا صلي الرسولك عليه أفضل الصلاة والسلام سلطانك يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه كرامة يا شرف دونك مديي مالتي مولد وي إلى كسر دوين حق بيني سلطان كجود إبلا كشتان كسر دوين يا وبالله التوفيق سلطان كسر دوين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا صلى الله عليه وسلم ولا ليال وحن هل كان مهدناك بلاران وقصوا جهدين يا salaadiinta ugaasiyada xildhibaanada golayaasha qaranka axsaabta bahda saxaafadda oo uu kow ka yahay maxamed cali weji sida ballaadhan ee ay xafladdan uga qayb qaateen aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta kadib waxaan hambaliyo ballaaran u dirayaa ummadweynta reer somalilan hambaliyo ballaaran ayaan u dirayaa waxaa kaloon leeyahay tolka hawsha ballaaran ii doortay aniga oon u marin wadda aan ku raadiyo mas-uuliyadda intan leeg anoon u marin dadaal iyo karti aan leeyahay ummaddaa dheer tahay haddana tolkay markuu sidaa iskugu noqday ee uu isha ismariyey aniga oon iska filayn baa ushu igu dhacday tolkaa kac oo tolkaa taladiisa qaba ayaa laygu yidhi hawshaasi tolkay ii gartay tolkay waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin hawshaasi waa guddoomay waxaanan ballan qaadayaa halkan waxaa laga sheegayey hablihii hadlayey ama dadkii hadlay ummadweynta ama beelweynta akisho siday u dhan tahay anigu suldaan baan ahay waa isku wadayaa waxaa ka shaqaynayaa
wada shaqayn ballaadhan ayaan la yeelanayaa beelaha aanu gacalnimada wadaagno tolnimada wadaagno deegaanka aanu wadaagno sidii ay ummaddu horumar u gaadhi lahayd ayaa inta kartidaydaa aan ka shaqaynayaa waxaanan leeyahay ummaddan ballaadhan ee hawsha intaa taraagga u soo martay ee hawshayda u soo martay ilaahay baa idinka abaalin doona allah idinka abaaliyo ta kale waxaan leeyahay abaaraha ka dhacay waddankeenna ilaahay waxaan ka baryayaa in abaaraha ilaahay naga soo jebiyo ilaahay waxaan ka baryayaa gacanta ilaahay baa lagu baahi baxaaya ilaahay raxmada ummadda u shubo ilaahay raxmad ballaadhan oo lagu baahi baxay ilaahay ummadda u shubo taasaa lagu baahi baxayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadda waxaynu geli doonnaa haddii allah uga geleeno waad maatantihiin hadda si toosa ayaa loo caleemasaarkiisi baa bilaabmaya hadda waxaannu garafkii caanaha ahaa ayaannu bilaabi doonnaa haddii ilaahay u imo dabeeta waanigaas ka ogaasaan iyo ka suldaan guud ahaanba aniga iyo suldaanka guud ayaa caleema saari doonna haddii alla awood galo وكاس ما شاء الله الحمد لله رب العالمين عليه واتوعين انت waxayna caleema saaray suldaankii si qiimala loo caleema saaray looma kala hadhin ilaahay waxaynu uga baryaynaa kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfacay inuu ilaahay ka yeelo inta ka soo qayb gashana ilaahay ka jisaaysiiyo suldaankii sacad muuse caleema saaray sidaasay ku dhan tahay wabilaahi tawfiiq